Dowlado badan maanta waxa ay baqdin weyn ka qabaan in qaybo ka mid ah dhulkoodii la waayo ama uu badda ku darsoonto. Waxaa ka mid ah Iskandariya, Shanghai, Miami iyo meelo kaloo badan dunida waxay cabsi weyn ka qabaan in qarniga soo socdo ama sanadada soo socdo la waayo dhulalkaas ay ka mid noqdaan qaybo ka mid ah badda. Ama ay noqdaan history iyo taariikh jiri jirtay oo la yiraahdo waxaa jiri jiray magaalo la yiraahdo magacaas oo qurux badneed dadka noocaasna ku noolaayeen. Waxay noqon doonaan taariikh iyo wax tagay. Waxaa jiray in wasiirka arrimaha dibadda ee Tuvalu waa jasiirad yar oo la yiraahdo Tuvalu wasiirkoodii arrimaha dibadda in uu shir ku dhex qabtay badda dhexdeeda oo kaga hadlayay in wadankiisa uu halis ugu jiro in uu qarsoomo qarniga soo socdo. Maxaa sababay ama maxaa keeni karaa in ay dhulal badan dunida maanta ku yaalo qaarado kala duwan ku yaal in cabsi laga qabo inay badda ku darsoomaan. Waxaa keeni karta laba arrin oo sababi karto. Tan koowaad waxa ay tahay heerkulka dunida oo sare u sii kacaya iyo wasakhowga hawada. Labadaas ayaa keeni karta in dhulal badan maanta ay cabsi laga qabo inay badda ku darsoomaan. Waxa ay ku keenaysaa waxay tahay heerkulka dunida oo sare u sii kacaya in xilliga qaboobaha dunida maanta uu ku badan yahay barafka oo baraf daran uu dhacaya. Barafkaas dhacaya inta badan 80% waxa uu fariistaa badaha. Wadamada uu ka dhaco inta badan 80% badaha ayuu barafkaas saaid u fariistaa. Markii la gaaro xilli kuleylahana waxa dhacdo in kuleyl daran uu yimaado oo barafkii badda fadhiyay gabi ahaan uu dhalaalo kadibna uu baddiisas ku raaco oo biyihii badda ee sare u sii kacaan. Markastoo biyihii badda uu barafkii dhalaalo oo kor u sii kacana waxaa siyaadayso cabsidii laga qabay ee ahaa in ay badda ka sare marto jooga magaalooyinka laga cabsahayo inay badda ku darsoomaan. Magaalooyinkan waa magaalooyin joogooda hooseeyo oo badda ayaa ka koreyso ilaa 20 sentimitir ay badda ka kacsan tahay. Waa meelaha laga baqayo in ay badda ka sare marto. Tan labaad oo keenaysa waxay tahay in wasakhowga hawada uu sare u sii kacayo dunidan. Waxaa keenaysa diyaaradihii oo hawada ku sii deynaya gas ama wasakhow badan ku sii deynayo, baabuurtii, dadkii dunida oo sii badahayo iyo sigaarkii iyo wixii ayaa keenaya in hawadii ay sii wasakhowdo. Mar walba oo qaacaas hawada galayo uu bato wuxuu isku bedeli doonaa daruur. Daruurtaasna waxay keeni doontaa inuu roob soo da'o. Roobkaas markuu soo da'o badaha ku sii da'ana waxay keeni doontaa in joogii badda uu sare u sii kaco biyihii badda ay sii siyaadaan dhulkiina uu hoos sii galo. Taasna ay ku timaado in magaalooyinkan ay mar dhow ka mid noqdaan qaybo ka mid ah badda. Meelaha lagu cabsida badan yahay ee laga baqayo in ay dhulka ku darsoomaan ama ay badaha ku darsoomaan waxaa ka mid ah magaaladan la yiraahdo Alexandria ee ku taala Masar iyo waxaa kaloo ka mid ah Shanghai oo ah China iyo Miami oo ah Mareykanka. Sidoo kale meelaha ugu cabsida badan dunida ee laga baqayo in ay qarsoonto waxaa ka mid ah jasiirada la yiraahdo Tuvalu iyo Maldives. Maldives waa jasiirad qurux badan ee dalxiiska dunida maanta loo aado ee ku taal qaaradan Asia. Jasiiradaas waxaa la yiraahdaa xilligeedii hore waxa islaam ka dhigay oo xukunkeedii qabtay nin Soomaali ah oo safar ku tagay meeshaas. Taariikhaha qaar waxay yiraahdeen wuxuu ahaa badmareen oo waa uu lumay oo meeshuu tagay. Dadka qaarna waxay yiraahdeen asaga iskiis u tagay. Muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa history ama taariikhda ninkaas uu Maldives u tagay. Waa dowlad maanta islaam ah oo dadka dalxiisayaasha dunida ay tagaan oo aad u qurux badan. Nidaam islaami ka jira walow ay diimo kale dadku caabudo ay ku nool yihiin wadanka laakiin waa ka mamnuuc in meelaha public ah ee dadka isugu yimaadeen khamri lagu cabo. Marka jasiiradaas la yiraahdo Maldives ee ku taala Asia ayadana waxaa la yiraahdaa waxay 80% halis ugu jirtaa in jooga badda ay sii kacaya iyo wasakhowga hawada keeni doonto in badaha ay dhulkoodii sii weynaado ama magaalooyin badan maanta ee caadi ah dad deegaan ay ku nool yihiin badaha ku darsami doonaan. Koow waxa ka ah jasiiradaas la yiraahdo Maldives iyo jasiirada la yiraahdo Tuvalu. Saddex waxaa halis ku jirto in ay qarsoonto ayadana jasiiradan la yiraahdo Marshall. ayadana halis ayay ugu jirtaa inay qarsoonto. Waxaa kaloo ka mid ah wadankan la yiraahdo Haiti. Haiti waa wadan yar oo ku yaal Latin America ee degaan dad yar oo madow ah. Jooga badda ayaa ka sareysa wadanka. Sidoo kale magaalooyinka halista ugu jira in ay qarsoomaan waxaa ka mid ah Jakarta oo ah ayadana Indonesia ku taala. Ayadana halis ayay ugu jirtaa inay qarsoonto oo had jirtaan waxaa la yiraahdaa jooga badda aad ay ugu sareeyaa magaalada
Jakarta la yiraahdo. Sidoo kale waxaa kamid ah meelaha halista ku jira inay qarsoomi doonto Nouakchott oo ayadana ku taal Morocco. waa badan yahay liisaska la leeyahay jooga badda ay aad ugu hooseeyaan oo cabsi weyn ayaa laga qabaa, laakiin intan waa intii aan dhihi karno waa ugu daran tahay in haddii sanadkan ama qarniyada soo socdo ama qarniga soo socdaba halis ay ugu jiraan inay magaalooyinkan gebi ahaanba la waayo jiritaankooda ay naqdaan taariikh jiri jirtay ee laga sheekeyn doono. muuqaalka intaas ayaan kusoo koobay. haddii ay tahay markii kugu horreysay aanu soo booqatay, subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kusoo gaaraan. haddaa hore noola joogtana like noo saar, asxaabtaada noo sii share garayso dhawaada.